intii waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona shirkii uga socday magaalada Dhuusamareeb dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo galabta qarka u saarnaa inuu burburo iyo kulamo dambe oo dib la isku soo laabtay beesha caalamka oo war ka soo saartay iyo kulamo wala filaya in halkaas ay ka bilowdaan oo aad u xasaasiya qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah qodobadii dilalka al-shabaab qaabilsana gobolka galgaduud oo dawladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay iyo waliba ciidamo badan oo ka tirsan al-shabaab oo dawladda Soomaaliya halkaas ay ku dishay dawladda Qatar oo bixinaysa lacagihii ugu badnaa abid ee Soomaaliya ku bixiso kaasoo ah in dawladda Soomaaliya ay doonayso in madaxweynaha Soomaaliya uu dib ugu soo laabto xukunka qodobada iyo qodobo kale ayaad wararka ku maqli doontaan haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan aan ku bilaabanay wararka naga ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa noo xaqiijiyay in galabta gabi ahaan bashirkaas uu ku dhamaaday fashil kadib markii ay isfahmi waayeen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Ismaan Madoobe iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada ay isku fahmi waayeen ayaa waxaa kamid ah leeyahay arinta gobolka Gado taasoo madaxweynaha Soomaaliya uu gabi ahaan badilay inuu ciidanka halkaas ka soo saaro Axmedobana uu sheegay in gabi ahaan gobolkiisa lagu soo wareejiyo waa sida uu sheegay oo Jubbaland xaq ay u leedahay in doorasho ka taliso Axmedobe oo warin hadalka qaatay waxa uu sheegay xaq ayaan u leeyahay inaan gobolkayga maamulo doorashada ka qabto sida maamul goboleedyada kale waa sida uu yiri iyadoo oo maamul goboleedyada kale ay doorashooyinka qabsanayaan ayuu madaxweynaha Jubbaland arintaasi markii hore yiri jawaabta waxaa qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in Jubbaland aan loo dhamayn dhismaheedii waa sida uu sheegay khilaaf badan u dhaxeeyo dadka reer Jubbaland lana heshiisiyo waxaa madaxweynaha Jubbaland gabi ahaanba uu shirkaasi ka kacay isaga oo sheegay in madaxweynaha Farmaajo uusan doonayn in dadka Jubbaland ay heshiisiyaan isaga oo sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya halkaas ku daabushay ay waxyeelo badan u geysteen ciidamada Jubbaland gobollo badan ay ka saareen waa sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inuusan gabi ahaanba isagu qaadan doonin heshiis dambe oo qabiya kaasoo ah in Jubbaland iyadoo gobolkeeda lagu soo wareejiyay mooyaane in ay saartaas dhici doonin waxaa markii shirka uu ka baxay madaxweynaha Jubbaland la sheegay inuu qaban rabay jiraad kaasoo beesha caalamku ay xiriir toos la soo sameysay isaga oo sheegay in gabi ahaanba shirkaas la joojiyay si ay sheegtay madaxweynaha Jubbaland wararkan ku helanay madaxweynaha Soomaaliya ayaa isna waxa uu sheegay in gabi ahaanba shirki bari uu la lahaa baarlamaanka ay ka joojisay beesha caalamka kaasoo xusid mudan in beesha caalamku hadda ay faragelin toos ah ku soo sameysay shirka Soomaaliya arrimaha kale ee hadda la isku hayo ayaa waxaa ka mid ah in beesha caalamku ay sheegtay in shirkaasi laga soo saaro arrin sax ah oo doorashada Soomaaliya dhinaca loo jeeyo waa sida iyadoo faragelin toos ah hadda la sheegayo beesha caalamku ay ku sameysay shirkaasi waa sidaan ku helna magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug madaxii dilalka al-shabaab u qaabilsana gobolka Galgaduud ayaa waxaa xalay gacanta ku dhigay ciidamada Soomaaliya ninkan oo ka soo jeeda Galmudug una qaabilsana al-shabaab qaraxyada iyo madaafiicda lagu duqeynayay magaalada Dhuusamareeb maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxay ciidamada gorgor ee qaranka Soomaaliya xalay ay sameeyeen howlgal gabi ahaan ay gacanta ku soo dhigeen ninkaas oo dhaawaca iyo 9 dhimasho iyo hubkii iyo qoryihii wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in ay jab xooggan gaarsiiyeen al-shabaab waa sida hadalka u dhigayeen isagoo oo sheegay inay soo dhiibaan waxaana wasiirka amnigu sheegay in ciidamada Galmudug ay sii wada doonaan hawlgalka halkaasi ay ka wadaan waa sida uu sheegay Axmed Macalin Fiqi oo wasiirka amniga Galmudug dhinaca kale taliyaha gorgor isna halkaas ka hadlaya waxa uu sheegay in ay kaarta u dajiyeen ayna gabi ahaanba soo afjareen hawlgalka halkaas al-shabaab ay doonayeen in magaalada Dhuusamareeb ku duqeeyaan dawladda Qatar ayaa waxa la sheegay inay ku bixinayso dhaqaalihii ugu badnaa baarlamaanka Soomaaliya ay doonayso in madaxweynaha Farmaajo ay dib ugu soo celiso waradan waxa la sheegay in taliyaha hay'adda nabadgelyada Fahad Yaasiin iyo saraakiilka sare oo ka tirsan dawladda Qatar iyo u qaabilsan maalgelinta inay yimaadeen magaalada Muqdisho oo ka yimaadeen magaalada Qatar dalka Qatar kaasoo la sheegayo in dawladda Qatar ay doonayso in xildhibaankiiba ay ku soo saarto lacag aad u tiro badan iyadoo dawladda Qatar ay doonayso in madaxweynaha Farmaajo ay hadda dib ugu soo celiso xukunka oo ka dhamaanaya bisha February ee ku jirta gudahan warkii caalamku aad ka socoteen channel kulan abshado kale YouTube kana intaas nabadgelyo